السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan khiyaartana daawanaysay meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhawaada wararka caawa hayno youtube-keenan badiya bari channel Ramadan Mubaarak wararka caawa waxa ugu dooran madaxweynaha Mareykanka oo qabanaya shirkiisa sanadlaha Ruushka iyo Ukraine oo iyaguna dagaalkooda sii socdo wararka Afrika iyo abaaraha oo Soomaaliya aad u naafeeyay wararka waxaad ku maqli doontaan faahfaahinta haddaan idiin faahfaahiyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu jeediyo khudbadiisii sanadlaha ahayd ee State of Union Address. Khudbadan ayaa la filayaa inuu kaga hadlo xaaladda dhaqaale ee Mareykanka, siyaasadaha, cashuuraha iyo shaqo abuurka, amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Dhanka kale, baraf xooggan oo ku dhuftay waqooyiga Ameerika ayaa sababay hakad ku yimid duulimaadyada tareenno iyo adeegyo koronto iyadoo gobollo badan lagu soo rogay xaalad degdeg ah. suuqyada maaliyadda caalamka ayaa sidoo kale hoos u dhacay iyadoo maalgashadayaashu ka walaacsan yihiin tartanka tiknoolajiyadda iyo xiisadaha ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo dalal kale. Dhanka kale, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa dhankiisa sheegay in dib loogu doortay hoggaanka dalkaasi, taasoo ka mid ah nidaamka doorashooyinka gudaha ee xisbiga talada haya dalkaasi. Wararka ka imaanaya dhankaya Yurub, dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa galay sanadkiisii afraad. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa weli hogaaminaya howlgalka military, halka midowda Yurub iyo xulafada NATO ay sii wadaan taageerada ay siiyaan Ukraine dhinacyada hubka, dhaqaalaha iyo tababarka ciidamada. Dalalka Yurub qaarkood ayaa ku baaqay xal diblomaasiyadeed, halka qaar kalena ay adkaynayaan cunaqabataynta saaran Ruushka. Sidoo kale, dalka Faransiiska, maamulka Louvre Museum ayaa wajahaya isbeddel hogaamineed kadib arrimo la xidhiidha maamul iyo amni. Sidoo kale, midowda Yurub ayaa ka shaqaynaya heshiis ganacsi oo lala yeesho Mareykanka si loo xoojiyo iskaashiga dhaqaalaha. Sidoo kale, wararka ka imaanaya Afrika, maxkamadda sare ee dalka Uganda ayaa magdhow 53,000 ku xukuntay muwaadin lagu magacaabo John Wataka kadib markii si khaldan loogu sheegay sanadkii 2016 inuu qabo cudurka HIV/AIDS. sida ay arrintani ku dhacday 2016, ninkan waxaa lagu wargeliyey inuu qabo HIV, waxaana la siiyey dawooyin uu qaadanayay muddo 7 sano ah. 2023, baaritaan cusub oo lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday inuusan qabin cudurka. taasi waxay ka dhigan tahay in muddo dheer uu qaadanayo dawo uusan u baahnayn. Maxkamaddu waxay ku xukuntay ururka ka shaqeeya arrimaha HIV/AIDS-ka ee T-AIDS Support Organization inay bixiyaan magdhow maadaama khalad caafimaad uu dhacay, sababo burbur ku yimid qoyskiisa, keenayna takoor bulsho, ku reebay dhaawac nafsi ah iyo niyad jab. Muhiimadda kiiskan wuxuu iftiiminayaa baahida loo qabo hubin iyo tijaabooyin sax ah ka hor inta aan bukaanka loo sheegin cudurka culus. Saamaynta khaladaadka caafimaadka ay ku yeelan karaan nolosha qofka. Mas'uuliyadda xarumaha caafimaadka. Khubarada caafimaadka ayaa marar badan ka digay in qof si khaldan loogu sheego cudur sababi kara dhibaato nafsiyadeed, takoor bulsho, dhibaatooyin ka yimaada daawooyinka aan loo baahnayn ama aan loo qorin. Arrintan ayaa noqotay mid si weyn looga hadalhayo dalka Uganda guud ahaan Afrika. Dhanka kale, Masar ayaa muujisay taageero ay u fidinayso Itoobiya arrin la xidhiidha marin-badeed iyo iskaashi goboleed, taasoo qayb ka ah isbeddellada siyaasadeed ee Geeska Afrika. Israa'iil iyo Itoobiya ayaa la sheegay inay ka wada hadleen aqoonsiga Somaliland. Israa'iil waxay xiisaynaysaa
goobta istiraatijiyadeed goob istiraatijiga ah ee Somaliland gaar ahaan Baabal Mabda si ay u dhisato xulufo Afrika ah oo ka hortagta saameynta Turkiga. Itoobiya waxay danaynaysaa iskaashi istiraatiiji ah iyo marinbadeed gobolka. Haddii arrintani hirgasho, waxay bedeli kartaa isu dheelitirka siyaasadeed ee Geeska Afrika iyo doorka Somaliland ee gobolka. Dalal kale oo Afrika ku yaala ayaa wajahaya xaalado siyaasadeed iyo amni oo kala duwan, iyadoo qaar ay ka socdaan doorashooyin iyo dadaallo lagu xoojinayo xasilloonida. Wararka ka imaanaya dhanka Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in mucaaradka ay soo jeediyeen 4 qodob oo muhiim ah oo la doonayo in la fuliyo ka hor 15 May 2026, kuwaasoo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka iyo nidaamka siyaasadeed. Wasiir Daahir Shire ayaa sheegay in mustaqbalka dhaqaalaha Soomaaliya uu ku xidhan yahay soo saarista shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ah. Warbixinno bani'aadanimo ayaa muujinaya in ku dhowaad 6.5 milyan qof ay wajahayaan xaalad cunto yari sababo la xidhiidha abaaro iyo hoos u dhac ku yimid gargaarkii caalamiga ahaa. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa kulankaasi wada tashi ah la yeeshay golayaasha Puntland iyo xubno ku matala dowladda federaalka si looga wada hadlo xaaladda siyaasadeed. Wararka dhanka ka imaanaya Somaliland, madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa kulan afur la qaatay odayaasha iyo madax dhaqameedka gobolka Awdal. Kulanka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga iyo xasilloonida, wada noolaanshaha bulshada, iskaashiga dowladda iyo madax dhaqameedka. Sidoo kale, madaxweynaha ayaa martiqaad rasmi ah ka helay UK Parliament, gaar ahaan aqalka hoose ee House of Commons, halkaas oo uu kaga hadlay xiriirka ganacsi iyo iskaashiga UK iyo Somaliland. Martiqaadka waxaa soo qabanqaabiyey Sir Given William oo aad u taageera Somaliland, saaxiib dhowna la ah. Intaa waxaa dheer, Somaliland ayaa ka qayb gashay shir ay qabatay IAPAC oo saameyn ku leh siyaasadda Mareykanka, halkaas oo wakiilka Somaliland ee USA kula kulmay mas'uuliyiin kala duwan. Dhaqdhaqaaqyadaas diblomaasiyadeed ayaa muujinaya dadaal sii kordhaya oo ku wajahan xoojinta xiriirka caalamiga ah. Mareykanka ayaa laga yaabaa inuu aqoonsado dhowaan, siday wararku sheegayaan, caalamku iyo 4 waddan oo kale oo iyaguna la saadaalinayo. Xogahan hayno, safiirka u fadhiya Somaliland Mareykanka Bashiir Good siduu ka qayb galay waxay noo falanqeynaya Cabdisalaam Baroon Sida. Bashiir Good ayaa ka qayb galay shirka IPAC. waxa weeyaan waa qolada taageerta ambaba u ololeysa Israa'iil. Shirkoodii ayuu ka qayb galay, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay Somaliland inay qayb ka noqoto Abraham Accord. Bashiir Good waa safiirka Somaliland ku matala dalka Mareykanka. waa nin aqoon-yahana wax badan bartay siyaasadda arrimaha dibadda, si aad u la socda, waana macallin jaamacadeed ayuu ninkan soo noqday xataa, oo waa nin PhD holder oo arrimaha siyaasadda iyo noocaas waxaan ku dhulka dhiga. daawadayaal, war waxaan caawidi ka haynay caalamka waa naga intaa. tan iyo intaan dib u kulmayno, habeenimo wanaagsan. khiyaartana daawanaysa subscribe noo saara please, share ta, comment, like. Bye.